Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. dadkayga aan jeclahayow, haddii ay tahay markii kugu horeysay ee channelkeena aad soo booqato, fadlan nagu taageer, share, like iyo warcelin, dhiirigelin ayay noo tahay. halkee ayuu isbeddelku ka bilaabmaa? dhammaanteen waxa aynu jecelnahay inaynu dunida u beddelno sida ay ku fiican tahay. koorsataa waa inaynu inagu xasuusannaa weligeen in isbeddelku uu ka soo bilaabmo gudaha, deedna uu u soo baxo dibadda. waxaa jirta sheeko cajiib ah oo uu dhowr mar ka warramay filosoferka reer Mareykan Wayne Dyer, waana sheeko aniga si gaar ah ii saamaysay sababtoo ah waxa ay sheekadani si yar oo kooban uga warramaysaa farqiga u dhexeeya isbeddelka ka yimaada gudaha iyo kan dibadda ka yimaada. qisadan ayaa laga warinayaa nin uu fure kaga lumay gudaha gurigiisa, waxaana uu ahaa guriga mugdi sababtoo ah korontada ayaa ka go'onayd. saaxiibkan waxa uu ahaa mid aad ugu baahan inuu helo furaha, waxaana uu bilaabay inuu raadiyo si kasta oo uu yeelayse oo uu heli kari waayey furaha mugdiga jira aawadiis. inta uu ku guda jiray baaritaanka furaha ayuu ka arkay darishada qolkiisa iftiin ka baxaya baalle ama tiir gurub ku xiran yahay oo waddada ku yaala. ifayana waxa uu weydiiyey naftiisa, ma sidan ayaan ahaanayaa in aan mugdiga wax ka dhex baaro, iftiinkuna halkaasi uu ahaado? isagoo aan labalabeen ayuu tartiib bannaanka ugu baxay. halkii baalluhu ku yaalay ayuu tagay, waxaana uu bilaabay inuu dibadda ka baaro furaha. in yar kadib ayaa waxa uu yimid mid ka mid ah jaarkiisa, waxaana uu su'aalay, waa maxay waxa lumay ee aad doonaysid? waxa uu ugu warceliyey, fure ayaa iga lumay. markaasi ayuu ninkii dariskiisa ahaa la bilaabay inuu furaha la doondoono. haddii muddo la wada baarayay furaha oo ay waayeen, ayaa kii dariska ahaa waxa uu su'aalay saaxiibkii, dhankee ayaad u malaynaysaa in uu kaaga dhacay furuhu? waxa uu ugu jawaabay, waxa uu iga lumay furuhu gurigayga gudihiisa. isagoo oo yaaban ayaa kii dariska ahaa haddana waxa uu su'aalay, caqligal miyay tahay in fure kaaga lumay gurigaaga aad ka doondoontid halkan? waxa uu ugu warceliyey, haddaa suuragal miyay noqonaysaa in aan iftiinka halkan kaga tago oo aan gudcurka ka dhex baaro furahayga? dhab ahaantii badankeennu waxa aynu samaynaa si la mid ah sida uu sameeyey ninkani. waxa aynu u baxnaa bannaanka inaga oo ka doondoonayna isbeddelka, sababtoo ah gudaheenna ayaa mugdi ah, iyada oo waxa aynu doondoonayna uu yaalo gudaheenna oo qura. waa gudaha nafteenna, laakiin ma aha dibadda. waxa uu leeyahay filosofer ruush ah, dhammaantood waxa ay ka fekerayaan isbeddelka dunida, laakiin mid ka mid a xitaa ka fekeri maayo isbeddel inuu ku sameeyo naftiisa. waxa uu sidoo kale yidhi Gandhi, ahow adigu isbeddelka aad rabtid in aad dunida ku aragtid. haddaba waxaan shaki ku jirin dhab ahaanta isbeddelku inuu yahay kan aynu ku samayno nafteenna, dabeecadaheenna, go'aanadeenna. sida caadiga ahna dabeecadaha iyo go'aanadu waa mid si durugsan uga warcelinaysa shakhsiyadda qofka, waana falsafadda khaaska ah, taasi oo ka kooban qanaacada, aragtiyada iyo qofku waxyaalaha uu rumaysan yahay. haddaba falsafadda khaaska ah waxa ay tahay madasha lagu tashkiiliyo qofka, ama waa barnaamijka qofka lagu maamuli karo fikirkiisa, go'aanadiisa iyo falalka uu samaynayo. waana sababta aynu u aragno in diimuhu ay bartilmaamaystaan tashkiilinta iyo sixidda falsafadda khaaska ah. bal tusaalayso inta uu ballaar la eg yahay isbeddelka yimid marka ay timid diinta islaamku. waxaa isbedelay juqraafi ahaan iyo taariikh ahaan dunida markaasi ay ku soo biirtay. waxa ay ahayd dunidu ka hor islaamka duni jahligu badan yahay, dadku ay ka fekeraan dhacdooyinka markaasi jooga oo qura. waxaa jiray in qof la iska caabudo, mid la adoonsado, mid kalena uu wax adoonsado, balse imaanshaheeda kadib dunidu waxa ay noqotay meel aqooneed. cilmi ayaa bilaabmay, dadku waxa ay noqdeen kuwo ka fekera nolol dambe iyo dunida la joogo. waxaa timid in la barto sida loo horumaro iyo in laga shaqaysiiyo garaadka. sidaa daraaddeed hagaajinta aynu la rabno dunida waa inay ka horraysa hagaajinta gudaheenna, innaga oo ka dhab sheegayna. waana taas tan laynooga baahan yahay in aynu ku dhaqanno mar kasta, xasuustana aynu ku hayno, sababtoo ah isbeddelka dibadda ka yimaada wax saamayn ah ma yeesho. ka waran haddii aad og tahay wakhtiga saacaddaadu ay sheegayso in aanu saxnayn, ma kula tahay inay kaa yeelayaan dadku? haddii aad u sheegtid inay saacaddaadu khalad sheegayso oo haddana aad ka dalbatid inay saacadahooda ku xirtaan wakhtiga khaldan ee ay sheegayso saacaddaadu, dabcan waa diidmo. xaqiiqo ahaantiise waxa aynu samaynaa si la mid a sidaa, innaga oo aan dareensanayn. waxaynu shallaytada iyo calaxalka u jeedinaa dadka, waxaana aynu ka dalbannaa isbeddelka ilaa ayba noqotay dabeecadda ku dul oygo dadka kale iyo calaacalku mid ku badan bulshadeenna. waxa aynu ka dalbannaa oo u jeedinaa dunida iyo walxahu in ay sameeyaan isbeddel, laakiin taa cagsigeeda falsafadda gunta dheer ee dhabtaa waxa ay tahay in ay dunida iyo walxaha kaleba ay yihiin walxo neg oo aan isbeddelin, balse innaga ayaa ah kuwa isbeddela. haddii uu jiro wax aynu ka cabanayno, ma ahan waxa inaga maqan,
waa wax innaga inagu dhex jira, waa waxa uu inoo sheegayo, waxa aynu wax ku cabirayno, wax ku garanayno, waa falsafadeenna khaaska. isbeddelka inagu yimaada ee aan bedelin gudaheenna ma aha mid jira. sidaa ogaalkeeda isbeddelka dhabta ah waa kan wax ka bedela qaabka aynu u fakarayno, dunida u arkayno, wax ka bedela falsafadeenna khaaska ee aan ahayn shay kale oo dibadda ah. waa shaqo ka bilaabmata gudaha oo u baxda dibadda ee ma ahan cagsigeeda sida ay u malaynayaan in badan oo dadkeenna ah. bal arag, marka aynu rabno in aynu tilmaamno shay, waxa aynu ku fiiqnaa farta suulka xigta oo qura. saddexda kale ee harayna innaga ayayna tilmaamayaan, gudaha nafteenna ayay tilmaamayaan. waa aynu karnaa in aynu ku samayno wax kasta isbeddelka aynu rabno, laakiin waa markii aynu bedelno falsafadeenna khaaska. waana qaanuunka rabbaaniga ah sida tan ee xukuma isbeddelka. allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay: ina allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim. sadaqa allahu alcadiim. sida aad arkaysid, waxa uu farayaa qur-aanku isbeddelka cidda rabta ay horta horrayso in ay naftooda wax ka bedelaan, waana falsafadahooda khaaska ah. waxa uu rabbi mar kale qur-aanka ku leeyahay: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. آيادان كريمكا waxa ay si toos ah uga waramayaan guusha iyo guuldarrada. waxa ay inoo cadeynayaan waxa sababa guusha iyo guuldarraduba in ay tahay waxa ku dhex jira qofka gudihiisa oo ah nafta. sidaa la ajligeed isbeddelka dibaddu inooga baahan tahay waa kan aynu gudaheena ku soo samayno. waa isbeddelka uu sugaya dalkeennu in aynu ku samayno si uu u noqdo mid wanaagsan. waa isbeddelka aynu la rabno bulshadeenna in ay ku noqoto mid fiican. waa aynu ku duminno walxaha xunxun ee ayna dhaxal siiyeen dowlad la'aanta ka jirtay muddada badan dalkeenna, qabyaaladda, filimada iyo wixii la midka ah. aynu isbeddelka ku samayno nafteenna, aynu saxno falsafadeenna khaaska, deedna iyada ayaa dunida u gudbaysay. fadlan nagu dhiirigeli subscribe iyo share, deedna ka hel channelkeena taariikho dad nolosha guula ka gaaray iyo warbixinno xiiso leh. mahadsan.